ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay hurayaan dhiigooda iyo naftooda waana geesiyaal aan gambanaynin iyada oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan haddana askariga aan xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu sameeynaya kaliya oo tusaalaha kugu filan ila daawo askarigaas u jeedin waa nin muwaadin Soomaaliyeed askari xoogga dalka askari Soomaaliya muwaadin bil Ramadaan ayuu ku jiraa meena ayuu bixahaya mid horna soo qarxiyay midaan hadda bixahaya inta garguurtay oo xabadkiisa dhulka dhigay ayuu labadiisa gacmood ku saaraya miino ay cadawgu geliyeen duleedka deegaanka Cali Axmed haddaba muxuu ka mudan yahay geesigaasi ku sheegi maayo waa ogtahay aan u duceyno maadaama lagu gudo jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyagoo saa'imiina ayay naftooda noo hurayaan si ay dalkeena iyo ummadeennaba ay u badbaadiyaan soo dhawaada muuqaalkana laga noo saaro oo si share gareeya soo dhawaada saaxiibayaal waxaan kala rabaa inaan idin wadaago wararkii ugu dambeeyay ee howlgallada ka soconaya Shabeellada Dhexe muuqaalkana laga noo saaro oo si share gareeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dib u xareynta deegaanka oo iskaashanaya ayaa howlgallo culus ka wada deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe kuwaas oo qaarkood ay dib ugu soo laabteen kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab deegaano fara badan oo dhaca Shabeellada Dhexe ayay maalmihii la soo dhaafay dagaaladu ka socdeen waxaana kuwa qaar u suurta gashay kooxdu inay gacanta ku dhigto hase yeeshee waxaa jira dhaliilo iyo caqabado waaweyn oo heesta ciidamada haddana iyaga oo sidaasi tahay marnaba ma niyad jibin oo waxay hurayaan naftooda iyaga oo dhiigooda noo bixinaya si ay dalkan iyo ummadanba ay u badbaadiyaan muuqaalkan aad u jeedaan waa askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaas oo kamid ah ciidamadii dib ugu laabtay deegaanka Cali Axmed oo toddobaad kadib shalay laga saaray kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab haddaba inta aanay gelin deegaanka kooxda Al-Shabaab ayaa miinooyin fara badan ku aastay wadada gasha deegaankaasi kadib toddobaadkii halkaas ku sugnaayeen ayayna miinooyinka aaseen hase yeeshee geesigan oo aan cabsanaynin ayaa inta garguurtay oo jilbaha dhulka dhigtay xabadkana ku seexday ayuu bixinayaa miinadii halkaas ay ku aaseen taasi maxay muujinaysaa waxay muujinaysaa in si adigaagan Muqdisho jooga oo magaalooyinka kale ee nabadda ah ee Soomaaliyeed ku nool aad nabad ugu hoyato una badbaado inuu isagu oo naftiisa iyo dhiigiisaba u horayo si uu noo badbaadiyo taasi waxay muujinaysaa geesinimada fariidka ah ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed marwo fertility center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka nagu dooro daaweyn qalliin iyo bacriminta IVF waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii hase yeeshee waxa halkaasi ka jira caqabado waaweyn oo u baahan dawladda federaalka ee Soomaaliyeed inay xal degdeg ka gaarto waayo marka aad la kulanto ciidamada marka aad booqato furumaha iyo jiida hore ee dagaalka waxaad arkaysaa caqabadaha dhabta ah halkaasi ka taagan runtii ma aha wax la sawiri karo ama afka lagu soo koobi karo mana aha wax qof kasta oo halkan Muqdisho aad jooga uu dareemi karo runtii waxa kaliya ee dhibta halkaasi ka jirta dareemi kara waa qofka inta taga dhibka iyo dheefta la soo qaybsada geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ee la dagaalamaya kooxda khawaarijta ah iyo sidoo kale kuwa dib u xareynta ee deegaanka toddobaadkii la soo dhaafay oo dhan waxaan ku sugnaa deegaano furun ah inaga oo habinba meel seexanaynay dhibta iyo dheefta ka qayb qaadanaynay dagaalkana la gelaynay ciidamada kana barbar dagaalamayna hase yeeshee caqabadaha jira ma aha kuwo halkan laga sheegi karo oo waxaanu ilaalinaynaa qalbiyada dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dhiiranaanta iyo sidoo kale moraalka ciidanka hase yeeshee waxaan la wadaagi doonaa dhammaan cid kasta oo qusayso iyo saraakiisha ciidamada tab kasta iyo xeelad kasta ha noqotee waafi waa saaxiibkaaga safarka iyo dalxiiska haddii aad ku nooshahay qurbaha waxaad ku soo wici kartaa ehelkaaga iyo asxaabtaada ku sugan dalka miyi iyo magaalaba ka iibso waafi app xirmooyinka jaban ee usbuuclaha ama bilaha ah waafi app kala soo deg Play Store ama App Store runtii dadka Soomaaliyeed maanta waxa looga baahan yahay inay diyaar garoobaan inay ka hortagaan cadawgaasi waxa ugu weyn ee dadka meel waxa ugu weyn ee dhibka keenayna waxay tahay isdhigashada dadka Soomaaliyeed iyo inaan cadow halis loo arkaynin duulaanka ay soo qaadeen kooxda khawaarijta Al-Shabaab oo rabta inay hesho marin muhiim ah oo isku xira Shabeellada Dhexe ilaa iyo Galgaduud si ay maleeshiyadkooda kala xirmay mudooyinkii la soo dhaafay ay dib isugu furaan isla markaana ay helaan marin ay ku kala gudbiyaan maleeshiyadooda waa inay dadku diyaar garoobaan dawladdu diyaar garowdo lagana hortago gulufkaas dagaal ee maleeshiyadu ay soo qaaday aad ba u mahadsantiin
wixii warar ee soo kordha mar walba iyo daqiiqad kasta halkan ayaan kula soo wadaagayaa idinkuna isha ku haya bogeygan Axmed Saciid Axmed waa mahadsantihiin saaxiibada